waxaan magaalada Roma aan ku wareystay madaxweynaha Puntland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo gordhow soo gaaray magaalada Roma ee dalka Talyaaniga mudane markale assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay warbixinta aad maadna siinaysid mudane adiga iyo wafdigaad hogaaminaysid waxaad la kulanteen mas'uuliyiinta dowladda Talyaaniga maxaa isku soo sheegteen maxaa ka gaarteen go'aankii bismillaahi raxmaani raxiim safarkan halkaan ku nimay aniga wafdigan hogaaminayo dowladda Puntland ka tirsan Soomaaliya waxaa safar runtii waxaan ku fiicnaa hadda ka hor inuu dhaco sababtu waxa weeye 20 sano oo dagaalka Soomaaliya soo burbur ahaa dowladda Talyaaniga waxaa lagu tirin jiray dowladda safka hore oo Soomaaliya inay wax la qabtaan laga doonayay waana ay ku dhex jireen run ahaan oo laakiin waxay kaga dhex jireen dhinaca midowga Yurub deeqaha bixiye ka jireen laakiin talaabo hor muuda ayaa markas dadka Soomaaliyeed ka filanayeen iyaga iyo dowladda carabka oo dariska intaba annaga dowlad ahaan waxaanu markan halkan ku nimi waxa way cusubaan ka helay waxaanuna u nimi waqti adag oo maanta ay Soomaalidu marayso dartiis oo ah dowladda transitionalka ahayd ama dowladda federaalka ku meel gaarka waqtigeeda dhammaan rabo khilaaf badan ka jiro iyada dhexdeeda hay'adaheedii baarlamaanka iyo maamulkaba iyo anaga laftiga iyo khilaafina soo dhex galeen ka bacdi markii heshiisyadii aanu ku wada shaqayn lahayn muddadii 2 sano ah wax ka socon waayeen waqtigan adag oo baarlamaanka dowladda federaalka ayna ay kororsiimo samaysteen 3 sano ka bilaabata markii muddadoodu ku dhamaato oo laga joogo bisha August 20keeda ku dhamaanay 3 sano oo hor leh arintaas oo walaac weyn ay ka muujiyeen beesha caalamku iyo dowladda ku meel gaarka qaybteeda executive-ka ama madaxweynaha iyo xukuumaddu ay ka muujiyeen anaga laftigay waanu ka soo horjeedsanay hay'elay innaada awood uma leh kaligiis intuu meel fariisto Soomaaliya inuu yiraahdo wixii aan doona anigu sameynaya anana ismagacaabaya haday tahay hadee wakaalnimadii iyo magacnigii Soomaaliya ay meesha u hayeen oo waxba aan siyaadaha ay ka jirin baa wuxuu noqonayaa wax meesha ka baxaya arintaas inaan ka wada hadallo xaaladan waa noogu weynay waxa kale oo noogu weynay dowladda Talyaaniga inaan dhiraano warmayo wada ku tihiin dowladaha kale oo wadamadii dhaqankooda iyo muxuu ahaay waxbarashadooda iyo xiriirkii isticmaalka iyo wixii ka dambeeyay lahaayo Ingiriiska iyo Faransiiska way la macaamilaan hadii dhibaato ku timaado gacan bay geystaan idinku si xaqaaqeen ku tiriya inaan dhiraano waana aanu niri oo arintaas aad baan miiska u saaray waxaan leen ka tashado haleen ku tashado in go'aankid ka gaartay dowladda Soomaaliya federaalka Soomaaliya oo mar ateed maxalla in afbuux ku tiray in albaabkan u xiray xarigan ka jirtay on haddana aan u jeedno in aad soo xiriirtay safiirka dowladda federaalka Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde go'aankii hore wax ma iska bedelay mis in Soomaali ahaan ay la socotaan dadka Soomaalida ah oo arrimahan Soomaaliya inta faalada ku jira oo qaabka aan marna dib u heshiisiinta iyo dadka Soomaalida wax dhigtooda jeceshay waxaan inta sheegay aad bay u liitaan anagu shakhsiyaadka hoggaanka hadda hayabaan isqabanay wax kale isku qabanay wixii aan ku heshiino dhambe ka soo bixi waayeen waxaan noqdeen qolo goon u goosata oo goon u tashanaysa magaciisa Soomaaliya kula sheeganaysa anaga waxba inagu helaan laakiin anaga wax kuma helo marka mar haddii ay saa tahay ay dhaceen dhowr jeer oo dhacdooyin waaweyn oo tii u dhameysay ay ahayd 19kii bishii hadda la soo dhaafay oo February waqtigeedii oo ahaa hadee waxay noqotay markaas inaanu niraahno war muddadiina inta ka hadhay idinku waxaad yeelaysaan bal anagu waxa soo socdo on baanu sidii tala aan ugu yeelan lahayn Soomaalinimo aanu waxaan ka geysan lahayn isku taxalluujinayna bal idinku kulli haddaan intii hore dhawad shaqayn weyn waxna ku dhawad haddana halka aad maraysaan bal inagu hadda yeynaan waxba faraa isku taagtaagan aan kala joogno saas yahay laakiin anagu Soomaaliyeed kama bixin baad joogtay maanta dhawad khudbadaan ka aqriyay jaamacadda Roma waan sheegay Puntland weligeed ma ay dhihin anagu Soomaaliyeed ka baxnay anaguna hadda ma aanan oran waxaan tashiilka hadalkiisa hadba sidii loo dhigo ayuu noqdaa laakiin sida runta ay waxa weeye iyaga un baan wada shaqayn weyn madaxda joogtay mooyee anagu dowladda Soomaaliya oo federaalka ahayd kamid baan nahay waxaan nahay dowladda ugu horeysay oo ah role model hadii loo yaqaan cidii laga dayan lahayn dowladda kale dhismaan su'aashii hore hal ku jirayaan ilaa waxa weeye hadaan Nuur Cadde la shaqaynayay
meel kasto aan tagnoba safiirka Soomaaliya u joogan oo la shaqeeyay sababtuna waxa weeye anaga Soomaaliya kamid safiirka ma awle qof ma awle madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ma leh ra'iisul wasaaruhu ma leh wuxuu u joogaa dadka Soomaaliyeed oo dhan community-ga halka degan danaha guud oo Soomaaliya annaguna safaarad kasta oo joogta waa la macaamilnaa waxaan la macaamilnaa tan haddaan maanta u nimi waxaan la macaamilnaa tan Kenya waxaan la macaamilnaa tan Ethiopia oo Addis Ababa waxaan la macaamilnaa tan Sanaa joogtay waxaan la kulanay tii Libya joogtay maraan tagnay waxaan la macaamilnay tii Kuwait joogtay la macaamilnaa tan Imaaraadka joogtay hadda anagu safaaradu waa safaaradayadii safaarad qof leeyahay ma aha ama aan anagu wax kula hayn anagu Soomaaliya kama aanan gooynay cidii markaas ku colaadisa maxay ula hadashay iyo rag badan baan ognahay oo loo keenay digniin inay xamar soo galaan ama shaqada laga saarayo markii anaga aanu isu tagnay oo aanu la macaamilay oo wixii aan markaa rabnay iyo meeshaan rabnay aan tagnay isu raacnay waxaan u qarinaynaa ma jirto aan ka qarsanaynaa ma jirto marka arrintaas aad baan uga xunnahay in sida loo qaato xiliga kala guurka ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya maxay idin qorsheysan oo aad gacan uga geysan kartaan haddii tihiin dawladda Puntland hore ugu baaqnay waxaanu ka geysan karnaa in la qabto shir Soomaaliyeed oo Soomaali kaliya ah oo ajnabi waxba ku lahayn oo wadanka gudihiisa lagu qabto anagu ma lihin agteeda loo qabto laakiin meel nabada haddii jirto Soomaali lagu qaban karo lagu qabto dadka Soomaaliyeedna iyaga ay ka soo go'do wixii masiirkooda hay'elay intii hore markasta kharash badan iyo muddo badan iyo dawladda maxaade shisheeya oo qaarkood dad walba qolasi ugu eedayo ayaa iska jiray inay soo galaan yaan hadda markan cid bal lagu eedayn bal waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed laftigooda inay istaaftaan waqtiga haddana waxaan aaminsanahay in loo bisil yahay dadka wakiilka noqonayaan dadka ay noqdaan dad iyagu ay soo doorteen maaha kooxyada ismagacaawday kuwa ay nimankii dagaalogayaasha ay magacaabeen kuwa qolooyinkii muxuu ahaaday casmara ay iyagu iska magacoodeen oo aan dadkii Soomaaliyeed gacan ku lahayn magacaabidooda waxaasoo dhan si looga gudbo waxaa loo baahan yahay dad Soomaaliyeed iyo shir Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed aan istaabto anoo soo kalsoonahay inay ku imaan karo dowladda Soomaaliyeed oo rasmi ah oo loo dhan yahay mudane madaxweyne ma kula tahay haddii kooxaha dagaalada kala soo horjeeda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay ku guuleystaan in maamulkaaga iska difaaci karo kooxahaas anaga darba xisaan noo sameeyay wada ogtihiino dagaal xun baa ka dhacay Puntland anaga iyo qolooyinkaas oo muddo haddeerinta anagu maamulka aan madaxda ka ahay uusan meesha imaan ka hor ku beermay saldhiga samaystay ku mira dhalay hubku urursaday cid ku urursaday meel walba dool kaga timi Soomaaliya oo dhan meel walba ka timi ajnabina waa loo xaqiijiyay laakiin anagu ma aanan qaban haddii kuwaas baryo kumaanan jabinay xoog baan ku jabinay annagu waxaan ku kalsoonahay inaan cid kasta oo nagu soo xadgubta aanu ka adkaanayno ama iyaga ahaataba cid kasta ahaatee hay'ad xaq baan ku dirin dhulkayga baan joognay inaan anagu kuma ahin cadow ma ahin inaan anagu ma doonano halkaa aan joogno inaanu daafacno xaq bay nagu tahay dadka iyaga iyo naftiyada iyo cirqiyaga iyo sharaftayada iyo deegaanka iyaga waana daafacayna wala shirka lagu qabtay jaamacada ee La Sapienza ee La Roma 3 shirkaas aad ka qayb gashay muxuu ku saabsanaa muxuu ka hadlaa shirkaas qoraalkii aan ka sameeyay oo aan khudbadan ka akhriyay oo afka Talyaaniga ah oo anu ragi waagi hore bartay aan kamid ahaa aan ku akhriyay wuxuu ahaa siyaasadda Puntland oo ku wajahan dhinaca Soomaaliya iyo Soomaalida ayuu ku saabsanaa iyo dadkeena aan u sheegno mowqifka siyaasadeed ee Puntland wuxuu yahay arrimaha Soomaaliya dhamaantood iyo waxa xaqiiq ahaan Puntland ka jiray wax badan baa la kala sheegaa dadka Soomaaliyeedna dib dhibaato ku dhacday oo burbur maskaxeed baa ku dhacay oo been iyo xurmo tasiil baa meel bagaaray inaan xaqiiqda dhabta ah oo siyaasadayada iyo waxaan Soomaaliya ka damacsannahay iyo mowqifka aan ka joogno iyo sida aan mustaqbal fiican uga rabno inaan uga sameeyno iyo inaan dadka Soomaaliya ugu yeerano inay nabadaan oo wixii hore oo dhibaato ay soo mareen ilaa waan waxa soo socda mustaqbalka kaliya ay ka fikiraan wixii tagay waxa soo socda in la raaco oo nabad ah ugu dambeyntii maxaa uu baaqo laheeday shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Puntland Soomaalida guud ahaan waxaan ugu baaqayaa sida hadda wax ku socdaan hadii ku sii socdaan dabargo Soomaaliyeed baa soo socda hay'elay bini aadamku waxa cilmi qeyb ma yaqaan laakiin waa qiyaasi kara sida hadda socota sima maalin ay Soomaaliya kala liidato 20 sano iyo intii ka horeysay dagaal sokay socday oo jabhado ay ka bilaabeen ilaa 28 Soomaaliya ka bilaabeen maanta maalin ay ka liidato ma jirto
weesha wax marayaan waa ognahay ummadii caafimaad ma haysato tacliin ma haysato nolol ma haysato meel ka shaqaysato ma haysato ammaan ma haysato maalin walba dadka dhimanaya waliba khusuusan gobolada dhexe iyo koonfureed waxa ka dhacaya wax bini aadamna loo adkaysan karo ma waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo dhibaato wada shida wada inay ka tanasulaan waxay wadaan naxal kuma gaaro adduunka nooca hadda wax wadaan naxal kuma gaaro inay hub ka dhigaan inay nabad qaataan inay shir Soomaaliyeed wixii siyaasad hunguri ka hayo inay ka qayb qaataan door ku yeeshaan ay soo fariistaan iyagoo aan doonayn in wax Soomaaliya aan cuntamin inay meesha keenaan wax Soomaaliya cuntamin Soomaaliya way istaqaana dhaqan bay leedahay diin bay leedahay aaday leedahay dad bay ahaan jiray dawlad bay ahaan jiray wax cusub oo dibadda laga soo dhoofiyay iyo dad dibadda oo Soomaaliya dibadda ka maamulaya midna lama aqbali karay marka waxaan ugu baaqayaa in kulli nabad qaataan wixii dhibaataha oo dhacay oo hore u jirayna la ilaawo wax cusub laga fikirayo mustaqbal dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay nabadooda adkaystaan dadka walaalada Soomaaliyeed oo soo qaxay oo meel walba jooga oo tuulo iyo magaalo iyo meel walba joogana inay si fiican u soo dhaweeyaan oo la macaamilaan waxay haystaan oo yar la qaybsadaan ama shaqo ahaato ama nolol ahaato ayaan ugu baaqayaa iyo nabad iyo Ilaahay nabadbaadiyo dhamaantii wareysigan la yeeshtay madaxweynaha Puntland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed wanaag inta Maxamed Roberto Somali Channel Roma